بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن أو وناكسن دعوة يال مركز وضفها دنيا كجوكتان ومركله إيه برنامج كمرتدا كالسن وإذا كايمان يا كالسن تي في استوديو سمجات لندن برنامج كمرتدا كالسن دعوة يال وحنا مرتي قادنا مسؤولين يا سياسيين عن نسرنا هاي انت بدن وحبي كوجهين حالة جودة سوماليا markay noqoto xagga siyaasadda iyo isbedelada guud ee ka socda toddobaadkan iyo barnaamijka martida kalsan daawadayaal waxaa noogu martiya Jamaal Maxamed Cusmaan oo dad taqaanaan oo ah wariye Soomaaliyeed oo ka hawlgala telefishinka Channel 4 ee wadankan Britain isla markaana ah soo saaraha ama inta badan waqtigiisa geliyay dalad ama shabakad ay Soomaalidu inta badan ka daalacato waxyaabaha marka ummadda Soomaaliyeed muhiimka ah ee u baahan in la ilaaliyo iyo in waxyeeladooda laga digtoonaado oo lagu magacaabo dalsoor aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa Jamaal barnaamijka martida kalsan oo nu jecelnahay maanta inaanu ku qaada dhigno sidaynu ka warqabno doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa la filayaa bishan aynu ku jirno aakhirkeeda in Soomaaliya ay ka qabsoonaadaan taasoo taariikh ahaan gudida doorashooyinka Soomaaliya ay asteeyeen in ay qabsoonto 28 bishan in madaxweynaha la qabto musharaxnimadiisa iyo doorashada hase yeeshee sida u muuqata ilaa iyo hadda faan noole fari kama qodna waxaa la filayaa oo ay dadku hadal hayaan inay haddana isla bisha soo socota ay u dhici doonto sidoo kale doorasho dadban ayay gudida doorashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku magacawday qurbaha ayaynu joognaa inta badan waynu ognahay doorashooyinka ka dhaca wadamada galbeedka iyo Yurub marka barnaamijkan waxaanu ku eegi doonaa baltan maanta Soomaaliya ka qabsoomaysa sanadan aakhirkeeda ama bilowga sanada 2017 maxay kaga duwan tahay tan caalamka وهجاك جمال مركله كسودو إن كل وقت كور قبتها جمال أرمها الصومالية إن بدن بعد إن الشبكة ده دالصور هذين نقطة يجود أهم بقى إن تلفزيون قاعد كهول كشيء channel 4 إيو إن موضوعي ذكر دون بعد طبعا جوابها قاعد صورك تا يبرها حتى على بالمرة هوري إنه اسم البرنامج سمين إن دورشة الصومالية سنة كذا واجني جودي دورشة دولة فدرال واحد كم قاعد وكم قاعدين دورشة تطبن maxay ka duwan tahay doorashadii hore waad mahadsan tahay Faisal waxaan u malaynayaa horta doorasho la leeyahay laakiin doorasho ma aha halkaas wax ka khaldan yihiin hadday ugu soo dhawaato waxa la dhihi karaa xulasho xulashadii lafteedii baa wax ka sii khaldan yihiin sababtoo ah doorashada inta badan la yaqaano wadamadan wada mabda'an dimuqraadiga la yiraahdo oo isaga laftiisu wax badan ka khaldan yihiin doorashada waxa loo yaqaanaa markii bulshadu ay soo dooranayso qof ay leeyihiin qofkaas waxa noo matali moogtahay xafiisku rooba ha ahaado laakiin tan hadda Soomaaliya ka dhacaysa ma aha doorasho waa odayaal isu tagay oo la soo xulay baa sii xulaya qof xildhibaan la leeyahay xildhibaanadii baa xulaya qof ay leeyihiin waa madax weyne madaxweynihii baa soo xuli doona qof uu leeyahay waa ra'iisul wasaare horta waa xulasha la dhihi karaa taa hadii laga sii tago qaabka loo wada xataa xulasho xalaal ama ah waana wax la og yahay wax qarsoon ma aha odayaashii lacag baa la siinayaa laaluush musuqmaasuq been odayaashii kuma xulanayaan qofkeeba ugu haboon shaqadan waxay ku xulanayaan qofkeeba lacagta ugu badan ay siin kara xildhibaanadii saas oo kale madaxweynihii markay dooranayaan keeba lacag badan ay siin kara marka waxaad moodaa siyaasadii ama boosaskii muhiimka ahaa waxay noqdeen wax lacag lagu bedesho marka ma dhihi karno waa doorasho waa xulasho hatta xulasho xalaal ama ah marka musharaxiinta Soomaaliya ee maanta u tartamaya inay hantaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee dagaalada iyo qabaa'ilka iyo masiibooyinka ay ku habsadeen maxaad leedahay marka bulshada u soo bandhigayaan oo ka musharax ahaan way ku hananayaan waa run waana su'aal muhiim ah in la isweydiiyo ima muuqata aniga hadda wax ay soo bandhigeen oo ay dhaheen waxaas baan qabanayaa mana jirto cid iyaga fiirinaysa waxa ay yihiin horta dadkani saad sheegtay wadamadan mabda'an dimuqraadiga boonbooniya waxaa la fiiriyaa qofkan shakhsinimadiisa aqoontiisa la fiiriyaa waxa uu soo qabtay baa la fiiriyaa taas baana lagu doortaa oo la dhahaa qofkani wuu u qalmaa booska ama uma qalmo
xataa iyagoo wadamadani ay gaalo yihiin oo akhlaaqda iyo khamri cabka iyo waxaas uu dhaqan u yahay, waxyaalaha markaad sii fiiriso ay sameeyaan baa waxaa ah qof alcoholista ahoo aan akhlaaq lahayn oo musuq maasuq leh ma dooranayaan. waxay rabaan qofka madaxda u noqonaya inuu yahay qof nadiif ah oo aamina, ceebka saliina. su-aasha marka taalla waxay tahay soomaalidii madaxda raggan u ordaya ma la isweydiiyey horta qofkani muxuu yahay? waxyaalaha inaga khaldan baa ka mid a, inkasta oo shacabku aynan qofka iyagu dee awood u lahayn oo ayna dooranaynin, haddana waxay ahayd in la isweydiiyo, in laga hadlo oo la dhaho war qofkani muxuu soo bartay, xaguu ka yimid, muxuu yahay, ballamo horey u qaaday ma fuliyey, qof akhlaaqle ma yahay, dhaqan ahaan dhaqanka soomaalida ee diinta islaamka qof ilaaliyo ma yahay. anigana iima muuqato arintaas markaan madaxa soomaalida raggan u tartamaya aada fiiriso. hal mid waana nasiib dara inaan dhaho, laakiin hal nin oo neef ariga ku aamini laha kuma jiro. an laftaydu waxyaalahaan aada u eedeynaya waxaa ka mid ah warbaahinta. innagaa wariyaala soomaa waxay ahayd mas-uuliyadda ina saaran in dadkan madaxtinimada isu soo sharaxaya aan macnayno waxa ay yihiin, aan qof walba fiirino meeshuu ka yimid, waxa uu yahay, aqoontiisa sidan kan. hadda madaxweynaha xasan sheekh oo kale hadda ballamo uu qaadaa jira markuu qabanayay meesha, in la isweydiiyo oo la dhaho war ballamihii wixii uu qaaday horta wax ma qabtay, cid isweydiinaysa ma jirto. qof walba wuxuu leeyahay ninkan waa ree hebel 4.5 buu ku imaanaya, lama dhahayo qofkan muxuu yahay. sheekh shariif madaxweynuu soo ahaa, madaxweynaha markuu ahaa muxuu qabtay la isma weydiinayo. sharmaarki ra-iisul wasaaru 2 jeer soo noqday la isma weydiinayo. shakuur wasiir buu soo noqday, raggan farmaajo ra-iisul wasaaru soo noqday. waxaa la rabay qof walba in la isweydiiyo la dhaho war qofkan siyaasad buu soo maray, mar buu jaga soo qabtay, muxuu soo qabtay, ballamuu qaaday ma ka soo baxay, qof ummadda wanaageeda ka shaqeeyey ma yahay, in la isweydiiyaa la rabaa. jamal adooga raalle waxaan u malaynaya dadka qaar ama daawadayaal badan daawanaya inay arrinkaa ay kaga jawaabi lahaayeen soomaaliya maadaama burbur iyo qas iyo rafaad badan ay ku jirtay ma aysan helin raggan musharaxiintii xilliye ay ama waqtiye ay kusoo bandhigaan waxqabadkooda. gaar ahaan waxaynu ognahay marka qofka madaxweyne u tartamayo ama musharaxa madaxweyne u tartamayo inuu waqti badan tifiyada caalamka uu soo hor fadhiisto, gaar ahaan tifiyada soomaalida aan maadaama dad Soomaaliya iyagu hayeen muwaadiniin Soomaaliya oo dadweynaha ka dhaadhiciyaan oo yidhaahdaan nin waxqabadkaygu sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo saas u noqonaya. masalada fursadaas way seegtay maba u arkaan de horta inay muhiim u tahay. midda kale isweydii oo wax ma jira ay hiigsanayaan oo isleeyihiin waxaan baad qabanaysaa. tusaale yar baan hadda ku siini, wadamada deriska aba ka soo qaad, eritrea soo afwarqan in la yidhaha ma maamulo. mar baan u tagon soo wareystay 2010 ahayd baan malaynaya, markii uu jamhadka ahaa qorshe uu dejiyey oo uu yidhi markaan qabsado dhulkayga aan xoreeyo saasaan u maamulayaa buu ku socday. haddaad fiiriso fiidiyoyadii ama muuqaaladii uu duubay waaga iyo waddankiisa qaabku u wado aad bay isu leedahay. malla zanaawihii kii Ethiopia ka dhintay waagi dhaweyd, isagana markaad fiiriso jamhadka markuu ahaa iyo wuxuu hiigsanayay iyo qaabkuu rabay inuu u maamulo sidaasoo kale u ahaa. Rwanda hadda nin baa maamula, Rwanda way naga liidatay, nin baa hal mar kor u qaaday. ninkaasi muxuu kor ugu qaaday? waxbuu ku socday. madaxdan Soomaaliyeed ee hadda tartamaysa ma aaminsani inuu jiro hal nin oo dhihi kara sanadka soo socda waxaasaan rabaa inaan qabto. nin walba madaxna baan rabaa inaan noqdo ku ordaya oo laaluush iyo lacag ku bixinaya. Jamal adooga raalli waa arrin dabcan aan xanuun badan markaad wadamadii deriska Ethiopia inoogu dhaweyd oo meel sano u dambeeyay wadanka isbedel inta lagu ka sameeyay Rwanda saad ka dhawaajisay. Soomaalida marka la sheegayo lama yiraahdo waa dad aqoonta ay ku liidata lama yiraahdo. marka ma oran karaa dadnimada ku liidata? lama dhihi karo dadnimada ku liidata, laakiin bulsho ahaan horta dagaaladii iyo wixii aan soo marnay waxaad moodaa burbur badan baa ina gaaray. waagii hore oday dhaqameedyada oo kalaa muhiim ahaan jiray. oday dhaqameedyadeeda waa kuwan laaluushka maanta qaadanaya ee qofkii lacag badan siiya dooranaya. culimada oo kale door muhiim ay ka lahaan jireen bulshada. haddaad magaalada dhex marto ood dhahdo bal wadaadada meesha ka hadla imisaad wanaag ku tilmaami kartaa, aad bay u yar yihiin. siyaasiyiintii, dadkii beec mushtarka ahaa ee shirkadaha lahaa, marka waxaad moodaa horta bulshada dadkii ama qaybihii muhiimka ahaa burbur badan baa ku yimid oo inta badan waxaa muuqda waa xumaan. ta kale jirtaa waxay tahay bulshadii lafteedii waxbaa inaga khaldan marka la fiiriyo. oo hadda dhaqan waxaan u leenahay
qof baa laga yaabaa in adeerka ama in adeerka inuu jago qabsado muddo yar markuu hayo guryo hadduu ka dhisto waxaan dhahaynaa wallahi ninkaasi waa nin rag waxbuu qabsaday fiir hadda waa tug intaan dhaleecayn lahaynan dhihi lahayn war ummadda maxaad u boobtay waan ku dhiirigelinaynaa in ummadda booba u fiirso kii dilaaga ahaa ee dadka dilaya dhiigyacabka ahaa wallahi ninkaasi waa nin geesi aan dhahaynaa marka waxay bulshadii lafteedii baa xumaan dhiirigelinaysaa marka soo kusoo bixi karaa madaxweyne sifooyinka hadda aynu sheegayno aan leh oo ummaddan sida matalan madaxweynihii hadda u dambeeyey ee wadanka wadamadan asia oo kale asia madaxweynihii wadamo badan baa waxaa jira wadamadoodii hore u mariyey oo sa aad ka dhawaashanaysa dee taarget iyo vision fog lahaa maalintii ay xukunkii qabteenna saasoo kale saan u yeelan karnaa marka waan yeelan karnaa wayna jiraan qofkii waxyaalo badan baa hor istaagaya marka hore marka waxaa la rabaa qofka raba inuu ummadda bedelo oo uu doon baa inala degtay moogta ummadda ka soo saaro meesha inuu qof adayg la yahay meel hiigsanaya dadkan kala duwan iyo wadamadan kala duwan iyo sida loo kala dabaro keeni kara caqli badan leh way jiraan waan hubaa inay jiraan dad badan oo soomaali ahoo buuxin lahaa laakiin waxun baa u diidan ama iyagu meesha intay saas u fiiriyaan ha dhahaan boos noogama banaana ama dana kale ha uga hor istaagaan laakiin maanta waa loo baahan yahay cid soomaali ah oo daacad ah oo ummadda rabta godka ku dhacda inay godka ka soo saarto waa loo baahan yahay ilaahay baa og inay soo bixiyo in kale laakiin hadda doorashadan jirta ama xulashadan hadda meesha ka socota iima muuqato inay raggan meesha ordaya ku jiraan rag adag oo daacad ahoo inaga saari kara culayska way madaxweyne hadda tusaale ahaan daynu soo qaadano talada hadda haya ee xasan sheekh maxamed waqtigiisu dabcan dhammaaday weli ciidamadii sheeye waddanka way ku sugan yihiin weli madaxtooyada meelaha qaarkood way ku sugan yihiin oo iyagaa ilaaliya baan idhaahdo qodobada lixdaa qodobeed ka dhawaashay ay ka mid kahayeen ugu horreeyey amnigu madaxweynuhu waxay u ahaayeen aasaas bay u ahaayeen taarget bayna u ahaayeen walow in badan ay wax ka hirgaleen ma is leedahay madaxweynaha hadda wuxuu cuskan karaa amniga inuu wax ka qabtay amniga ma u malaynayo in isbedel badan hadda jiro 4 sane lasoo dhaafay qaraxii muqdisho uu ka dhacaa midda kale ogow muqdisho soomaaliya oo dhan muqdisho ma aha muqdisho haddaad 20 kilomitr dhinaca u dhaafto dagaalkii wuu jiraa qabyaaladii way jirtaa baahidii way jirtaa oo abaar xun baa hadda ka jirta dhulka oo dhan marka ma u malaynaya in la dhihi karo amnigii wax badan baa laga qabtay waa laga yaabaa muqdisho inay sidii hore qaraxu ka yaraaday laakiin waad ogtahay mar walba qarax baa ka dhaca dadku cabsi bay ku joogaan waxaana u fiicnaan lahayd oo u habboonaan lahayd anu isagoo kale hadda haddaan ahay waxaan ka bilaabi lahaa bal horta inaan villa soomaaliya gacanta ku dhigo villa soomaaliya markaan ku dhigo xaafadda gacanta ku dhigo muqdisho gacanta ku dhigo oon saas u ballaariyo maamulka laakiin villa soomaaliya hadda markaad fiiriso afrikaan baa ku ilaaliya qof dad shisheeyaa ilaalinayaan oo shisheeya qoodinayaan oo shisheeya maamulayaanna way adag tahay inuu dana soomaaliyeed ka shaqeeyo mar walba oo ay muhiimadda uu saaro dana soomaaliyeed dadku inta badan waxay isbarbar dhigaan 25 sano u dambeeyey dhibaatadii soomaaliya ka taagneyd iyo maanta oo bulshaweynta soomaaliyeed maskaxdooda ay ku soo dhacayaanba doorasho marka ma is leedahay weli rajada aad buu fiican tahay oo maadaama hadda doorasho dadban lagu jiro oo ay soo bixi doonaan musharaxiintu waa la gaari doonaa one man one vote horta rajada lagama quusan karo aniguba inkastoo wariyaashu inta badan xumaanta wax ka fiiriyaan oo indhahan ku aragna inta badan xumaan tahay haddana rajo waan qabaa inay wax hagaagayaan hadduu ilaahay yidhaahdo su-aasha taallaa waxay tahay hadda doorashadan ka jirta ama xulashadani dadkan tartamaya ama ordaya ma yihiin dadkii culayskan inaga qaadi lahaa ama godka inaga soo saari lahaa su-aasha aan rabo inaan ka jawaabaa taas ah iima muuqato waa maya isbedel waan hubaa wuu iman hadduu ilaahay yidhaahdo wakti bay qaadan laakiin wuu iman ama dhinac xun bay inala aadi sheekadu ama dhinac wanaagsan bay inala aadi dhalinyarada yaryarna waxaad moodaa inay waxoogaa baraarugsan yihiin hadda taasa rajo badan aniga i gelinaysa laakiin doorashadan iima muuqato raggan ordaya inay yihiin rag hiigsi leh oo fikiro leh oo caqli badan oo la dhihi karo ummaddan meesha xun sheekadu la gashay way ka soo saari karaan laakiin isbedel wuu iman hadduu ilahay yidhaha rajo way maxaa hor taagan baad is leedahay in la helo ragga noocaas oo mar kale waa su-aashaan ku weydiinaya maxaa hor taagan in la helo waxaan u malaynayaa
saan sheegay waxyaalo badan oo hortaagan baa jira oo kow hadda anu dad baa jira aan islahaa way ku habboonaan lahaayeen markaad weydiisa waxay ku dhahayaan niyo ma geli karno meeshaas way ka cabsoonayaan way ka cabsoonayaan marka haddii laaluush la bixinayo ma geli karo meeshaas marka waxaa laga yaabaa tan la rajaynayo 2020 hadduu ilaahay yidhaahdo haddayna sheekadu dib u noqonin oo dagaalo iyo buuq aynan abuurmin in waxaa laga yaabaa ta dambe ee laleeyahay shaksi baa loo codayn doonaa in may laga yaabo rag badan inay kusoo dhiiradaan inay soo istaagaan ay dhahaan anaa Soomaaliya maamuli maanta way doorashada markaynu ka dhawaajinayno waxaan ka fogeyn beesha caalamka aynu ognahay in Soomaaliya faragelin toosa iyo mid dadban ay labadaba ay ku hayaan Soomaaliya waynu ognahay oo wadan burburay sameyn badan ka dhawaajinay dhaqaalaha hadda uu ku kabto oo ama doorashooyinkaas oo ugu dambeeyay oo ku hanto male wadamo badan baa marka Soomaaliya faragelin ku haya oo leh dhaqaalaha wadasiinayna haday European haday noqoto iyo wadamada Carabta haday noqoto marka intee bay laagtahay had intee la galaday siyaasadda raad bay ku leeyihiin horta raad weyn bay ku leeyihiin oo markaad sii fiiriso doorashada waxa wax dooranaya Soomaali ma ah waa shisheeye xaqiiqdu waa sidaas shisheeye isku hay hal tusaale oo hadda waa la og yahay Imaaraadka oo kale inay maan dhaweyd madax isugu yeedheen Ethiopian-kuna waxa la leeyahay Xasan Sheekh bay wataan kuwana Sharmaarkay leeyihiin Imaaraadkuna aan isagaan wadana marka conflict interest wadamada iyagiiba isku haysta yaa Soomaaliya madax ka noqone Soomaali iskuma haysato war yaa madax inoo noqonaya hadda awoodana ma laha ay dhahaan war yaa madax inoo noqonaya waana ayaan dar waa run waxaanad moodaa waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah madaxdii Soomaalida isku sheegaysay oo aad u damiir xun kalsoonina ayna haynin saan anu islaahay aqli badanna ma laha sababtoo ah waa run in Soomaaliya meel xun ay taalo inaan baahanahay waa run waa sax in wadamada kale la shaqeeyo laakiin Soomaalida maxay dhihi jireen baqtiga maxay dhihi jireen aan baahanay baqtiga looma cuno meesha ay isdhigeen waxaad moodaa in ay aad u fog tahay maalin dhaweyd bay dadku aad uga hadlayeen Xasan Sheekh oo safiir ku xigeenka Imaaraadka ugu tagay safaaradda bahdil ka weyn ma jiro madaxweyne qaran oo sameynaya waxaas waa dhaweyd buu jigjiga tagay oo dhul Soomaaliyeed uu yiri Soomaaliya ma aha waa khiyaano qaran waxaasoo dhan uu ordayo oo u sameynayo waa in uu jagadiisa ku soo noqdo marka iyagii madaxdii laftoodii baa isbahdilaysa adoo iga raali jabal in badan bay warbaahintu ka hadashay safarka ugu dambeeyay marka madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee kilinka shanaad ama ismaamul goboleedka Soomaaliya Itoobiya booqda waxay u arkeen sharaf iyo in madaxweynihii Soomaaliyeed ee dawladda federaalka Soomaaliya oo booqanay dhul Soomaaliyeed oo dawladda dariska Itoobiya ay gacanta ku hayso rajaba muuqata idinka idin muuqan miya marka rajo ma muuqato sababtoo ah dhulkan waa dhul Itoobiya gumaysato horta inta la isla ogolaadaa sax waa laga awood badan yahay waa run laakiin dhulkan Itoobiya haysato Itoobiya gumaysato awood lagaga soo celiyo lama hayo hadda laakiin ma aha madaxweynaha Soomaaliya markuu jigjiga tago ee uu dhaho dhulkan waa dhul Itoobiya macnaheedu uu u saxiixay macnaha uu dhiibay way dadkaas dhowrka milyan ah ee dulman ee la gumaysanayo iyo dhulkoodiiba uu isku dhiibay waana khiyaano qaran dad badan oo weyna jiraan sheegay oo sidaa yiri wuxuu u sameynayana wax kale ma aha waa aad soo noqotid marka macnaha waxaan ku leeyahay qofkan madaxnimada Soomaaliya ama raba isagaa isbahdilay kuma uu qasbanayn inuu jigjiga tago oo uu Itoobiyaanka raali geliyo waxa uga fiicnayd inuu Soomaalida raali geliyo oo uu dhaho war waxbaan khalday sidii aan rabay ima noqonin culaysyo badan baa jiro oo idaan arkin fursad kale hal la isiiyo ana isku dayay laakiin inuu marna Imaaraadka u tago marna xagga tago marna dad kale oo shisheeya mar walba uu raali geliyo horta xumaan bay tahay su'aashaadii ahayd shisheeyahani way kala duwan yihiin midba wax buu rabaa wadamada dariska danay leeyihiin carabuhu danay leeyihiin oo iyaga xataa kala duwan Yurub danay leedahay Mareykan danay leedahay Turkigu dan buu leeyahay waxaas oo dhan ka muhiimsan inaga maxaa dan inoo Soomaali hadaan nahay taas waxaa lagaga bixi karaa oo lagu ogaan karaa maxaa dan inoo ah qofka siyaasiga ama hormuudka ah markuu isweydiiyo ee uu dhaho war intanoo dawladood baa noo kala tartamayo oo nagu soo ordaye sidee baan uga faa'iideysanaa meesha iyagu ay naga faa'iideysanayaan iyaga isku keenayo moogta iyaga isdagaalayo oo aan Soomaaliya u kala ordaya waa laga faa'iideysan karaa siyaasiga aqliga leh iyagu madaxa isugu dhufan karaa Soomaaliya ku horumarin karaa ku waxaan karaa laakiin ma sameeynaye wuxuu isku dayayaa inuu mid walba raali geliyo intii uu raadin lahaa inuu Soomaali raali geliyo oo uu dhaho
dadkaygii oo waxaan baan qabanaya beesha caalamkaynu ku jirnaa turkigu saynu ka warqabno adnaad ka dhawaashisay soomaaliya kaalmo lixaad leh oo mid gaara iyo mid toosan intaba uu ka geystay haddana saad ka dhawaajinayso tartanka kama maqna isaga oo dhanka kaalmada weliba adeegsanaya xasan sheekhna wuxuu laleeyahay garab iyo xulufo weyn markaad isku eegto imaaraadku hadda ordaya iyo wadamadan bariga yurubta kale iyaguna ordaya turkigu kaalin lixaadle ayuu soomaaliya iyada oo jiifto dhulka kasoo qaaday masalada marka in isaga wax laga dhegeysto tale la weydiiya way mudaan lahayd horta mid baa jirta waa run turkigu mar 2011 abaaro xun jireen oo aad dhulka loo yaalay buu iyo tusay dadka Soomaaliya inay ka naxayaan waxyaalaha ballan ay qaadeenna way sameeyeen laakiin muhiimaddu waxa in la ogaado wadan walba danbu leeyahay wax la iska kaasiinaya ma jiro ama turkiga ha noqdo ama carabaha ha noqdaan ama kuwa dariska ama European cid walba dan bay leedahay inagu inaan isweydiino maxaa dan noo ah Soomaali haddaan nahay maxay dantu noogu jirtaa keebaase danteena noo fulin kara inaan isweydiino baa muhiim ah baan u arkaa marka laakiin haddii aan isku dayno in mid walba aan goonidiisa u raali gelino waxaan noqonaynaa kubad lagu ciyaarayo marba dhinac loo laadayo meesha aan iyaga laga dhigi karo kubad lagu ciyaaro midba dhinac loo laadayo madaxa la isu geliyo laga faa'iideysto mid walba horumar iyo la isku dayo in maalgelin wax lagu sameeyo Soomaaliya marka I think waxaa maqan baan u malaynayaa madaxdii fikirka iyo aqliga lahaan lahayd war wadamo badan baa tartamaya seebaan uga faa'iideysanaa waxaynu ognahay Soomaaliya imika inay u qaybsan tahay maamul goboleedyo inay u qaybsan tahay oo matalan imika koonfur galbeed oo kale Ethiopia raad weyn bay ku leedahay Jubbaland oo kale Kenya raad weyn bay ku leedahay Muqdisho iyo gobolka Banaadir ciidamada jooga shayihii raad weyn bay ku leeyihiin wixiiba mar hore kala tageen masleedahay yaasa lagu midayn karaa horta waa la midayn karaa Soomaali waa dad hal ah waa la sii kala fogaaday gobolada la kala samaystay qabyaaladii baa sii durugtay laakiin waxaan aaminsanahay haddii la helo qof mas'uul ah oo daacad ah in la isku keeni karo dadka la isu soo dhaweyn karo waa dad isdhalay waa dad wada nool waa dad isku diin isku luqad dhinac walba isku mid marka la fiiriyo waxaa lala yahay qof daacad ah oo soo istaago oo dhiirada oo danaha Soomaalida fiiriya madaxdan hadda dadkan aan sheegayna markaad fiiriso intooda badan waxay ku dadaalayaan sidii ay shisheeye u raali gelin lahaayeen kuma dadaalayaan sidii ay Soomaali u raali gelin lahaayeen khaladkuna halkaas ka jira maxay taasi tahay danihii Soomaalida iyo danihii shisheeyaha mar walba isma qaadanayaan way iska hor imaanayaan marar badan qofkii madaxda dan shisheeyaha dumarka raadiyo dana Soomaali ma qaban karo dhaqaaluhu koob ka yahay sadan ka warqabnana doorasho marka la galayo dhawaanahan waxaynu ogeyn in 2 milyan ka badan marka qaarkood kursiga baarlamaanka oo qiimihiisu oo kor u dhaafo inaan lacag haysan aanu soo baxayn marka masleedahay marka qaarkood dadku waxay bidayaan dan iyo naf bidayaan inay lacagta wax ku korkortaan ku isticmaalaan lacagtani hal cilad bay keenaysaa oo aad u weyn oo ah qofkan xildhibaanka ama odayga ah markuu meeshii lacag ku yimaado ama madaxweynaha ah lacagtaana laga yaabo 100 sano hadduu shaqeeyo inuu mushaar ku qaateen lacagtii waxay u tahay isaga maalgelin wuxuu booska u galayaa waan huba inay jiraan kuwa daacada laakiin intooda badan markaad meeshii 100,000 ku bixiso waxaad u galaysaa in aad wax boobto xaqiiqdu waa sidaas lacag maalgelin bay ku tahay waa inay ka badan kugu soo noqoto marka lacagtaas la bixinay waa ganacsi oo kale lacagtaas ciladaas ay leedahay wax xaraan lagu aasayna way adag tahay wax xalaal inuu ka dhasho وهاك داوديال halkaad naga daawanaysaan waa Kalsan TV studiisa magaalada London barnaamijkana waa barnaamijkii martida Kalsan oo marti noogu ahaa Jamaal Maxamed Cusmaan oo ah aqoonyahan ama wariye Soomaaliyeed oo ka hawlgala Channel 4 oo laga leeyahay wadanka Britain isla markaana ka faaloodo arrimaha Soomaalida way markaan aynu nimaadno dalsoor dabcan dareenkaaga waxaad aynu ka hadlaynaa oral ahaan baynu ka hadlaynaa laakiin qoraal ahaanna waad ku soo dhigtaa oo shabakada dalsoor iyo wixii macluumaad oo kale aad dadweynaha ugu gudbisaa dalsoor maxaad ahayd dalsoor waa warbaahin baraha internetka ah oo aan bilownay bishii Febraayo ee sanadkan hadda dhamaanaya wax kalena uma sameeynin waxaan u bilownay in bal bulshada aan ugu adeegno waxyaalo yar yar oo waxaan sameeynaa warbaahinta kale ayna sameeynin oo aan isleenahay waa laga tagay qaabkan u shaqeynana uu ka yar duwan yahay marka kulay shaqo kalaan hayaa oo Channel 4 News baan la shaqeeyaa laakiin tan waan ku dhex wadaa
waana un warbaahin madax bannaan oo annagu aan iswadno aan dadaalayno kolley sidaan rabnay wax uma samayn karno tabar la-aan baana yar hayso oo weli maanaan weynaanin laakiin waan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan weynaano muhiimaddaan u samaynayna waa in aan bulshada soomaaliyeed ugu adeegno waxyaalaha laga tegtegay aan isku dayno inaan taataabano oo aan dadka tusno وهاك داوود خدك تلفونك waa inoo furan yahay wixii tala iyo tusaale ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee la filayo bishan aakhirkeeda ama sanada soo socda bilowgeeda inay ka qabsoomaan caasimadda Soomaaliya waad nagala qayb qaadan kartaan jamaalna waad soo weydiin kartaan way tani markii aad asaasteen dalsoor maxaa kaaga soo baxay dalsoor horta waxa iiga soo baxay inkastoo aan muddo wariye ah oo telefishinka channel 4 sideed sano waxaan la shaqeynayay laakiin afrikaan u qaabilsanaa oo shaqadeeda marka la fiiriyo 10% baa Soomaaliya ahayd afrikada kale ku wareegi jiray Soomaalida hadda aad u dhex galay wax badan baan ogaaday aan markii hore ogeyn oo ceebaba isaga badnaadaan haddana waxaa jirta rajo ah oo igashay oo markii hore aan ugu jirin oo ah dhalinyarada yaryar waxaad moodaa inay nool yihiin markii hore waxaa fikra igu jiray dadkii dagaalada kadib dhashay ma fayooba oo waxaan islahaa dadkii hore afayo laakiin waxaad moodaa inay dhinaca kale tahay oo dadka hore waxaa 40 ka weyn hadda inaynu fayoobayn baad moodaa dhalinyarada yaryar ay fayoo yihiin oo ay dareen badan muujinayaan in la helo wadan awood leh horumar leh midaysan ay aad u raadinayaan baad moodaa meel ay sheekadaasi aadi doontana ma garan doono laakiin Soomaalidii baan sidii hore si aad uga fog baan u bartay baan isleeyahay waa hagaag way an daawada u horeeyay khadka telefoonka si hadii uu ku jiro hello assalamu alaykum hello walaal salaam hello assalamu alaykum alaykum salaam way codkaaga walaal wax yar nagu yar waxaan jeclaan lahaa haday xaggaaga tahay iyo haday xagga farsamadayada tahayba in aanu kor u maqallo ma ku jirtaa ay si fiican iima maqashaa hello way waan ku maqlaynaa laakiin dirqi ayaanu ku maqlaynaa marka waxaan jeclaan lahaa codka xaggiina waay de annaga ma xaggeena way farsamo yaqaankan marka codsanaya haddii ay xagga iyaga tahay inuu mar kale au isku dayo inuu noo kaa soo gudbiyo waanan insha allah waad nagu soo celin doontaa way jamaal iyo dalsoor siyaasad markaa madax bannaan yihin jamaal iyo dalsoor siyaasadha waa laga madax bannaan yahay way annagu waxaan xoogga saarnaa barnaamij walba oon samaynayno inaan ku salayno barnaamijkan dani ma ugu jirtaa bulshada Soomaaliyeed hadda markaan channel 4 u shaqeynayo ama warbaahintan shisheeye barnaamijyada la samaynayo waxaa lagu saleeyaa bulshada loo adeegayo dani ma ugu jirtaa way channel 4 hadda British weeye dadka Britishka dhaqaalihiisa bixiya wax ku xayeysiista barnaamij walba oon samaynayno waa inaan ka dhex raadino dana British waa gartay ma dhahno yaa lacag idin siinaya iyo yaa reer hebel ah iyo yaa sida laguma saleeyo barnaamijyada waa la khaldami mar walbana waan khaldanaa waan isku daynaa inaan saxno wixii khalada naga dhacay laakiin waan ka madax bannaanahay dadka kale annaga wariye ahaan iyo warbaahin ahaan wixii aan u aragno in bulshada dani ugu jirto un baan samaynaa qofna lacag kama qaadano dadka aan wareysano kuwaan wareysano lacag ma siino waxaan ku salaynaa waxaan dani ugu jirtaa bulshada Soomaaliyeed aan samayno saan ku sheegayo waan khaldanaa waan khaldamaynaa laakiin waxaan ku salaysanahay inta badan danaha Soomaalida barnaamij walba oo sameeyno dhinacan walba aan ka aragnaba dana Soomaaliya way waxaan aragnaa inta badan way aan siya fursad hello assalamu alaykum hello حاجة على حاجة فرسمة يجتا أنت بدن وحن أرجنا جود أهم الصومالي مركز وتهيب وات مقلد وات سوق بيسان مركز قاركود كومنتية لقى بحين يو مثلا كاد مركز كسود دبتان برعو أو كلا أم هرجيسو أو كلا تذكر قاركي واحد يكون يدين برعو سومان لانو كلا إننا سوقرين ما حد كي تشوفي سمر وحن بوليسي هو قرشو نود جيسان صومالي هرت إني صومالية تاي أنا وهاي وحي صومالي وين تلي بيه جري dalsoor fikir noocaasaan ku soconaa jigjiga jabuuti gaarisa hargeysa muqdisho kulli inay dhul Soomaaliyeed yihiin baan aaminsanahay ma qorno markaa magacyadan dambe ee dib ka yimid oo inta badan khilaafka keena magaalooyinkan qorna anagu saan ku sheegayna dalsoor dhowr tiiro ku salaysanahay jiro oo ay kamid kow ka tahay midnimo Soomaaliyeed iyo in Soomaali ay hal tahay hal reer tahay hal qaran tahay oo dano
iyo doqonnimadeena iyo dulinimadeena ina kala geysa iyo qabyaalad wuxuu rabaa laakiin anagu waxaan aaminsanahay fikir ah Soomaali waa hal taasaana keenaysa inaan gobol qorin magacyada la sheegay way waxaan u malaynayaa daawadayaashu in badan bay isku dayeen inay khadka telefoonka soo galaan laakiin ilaa iyo hadda cilad xagga farsamada ayaa jirta waanu idinka raali gelinaynaa marka uu farsamayaqaanku nala hadlo ama noo soo gudbiyana codkiina waad maqli doontaan way balan isku dayno mar kale halo salaamu calaykum halo way marka jawaab haddaynu u noqono arrinta doorashadan hadda aynu filayno ama Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya la filayo inay ka qabsoonto caasimada Soomaaliya oo la filayo waliba in January ay dib ugu sii dhacayso oo aan ahayn markii koobaad iyo markii labaad dib u dhacdo rajo intee laga qabay qabsoomayso guud ahaanba horta waxaad moodaa dhowr jeer inay dib u soo dhacday inay qabsoonto horta waa lagu qasban yahay sababtoo ah UN-tan iyo dadkan wada dhowr sano waxay ka soo shaqaynayeen marnaba ma ogolaanayaan inuu dhiciso iyagaana inta badan Soomaalida riixayo oo dhahay waa in la qabto marka si xalaal bayna u dhicin wixii si nadiif ayna u dhicin laakiin UN iyo wadamadan shisheeye ee Soomaaliya faraha kula jiray waxay u noqonaysaa dhiirigelin weyn in Soomaaliya doorasho ka dhacday iyaga taas wax weyn oo markaad fiiriso ee aad siyaasiyiintooda iyo weydiiso waxay ku dhahayaan dhaqaale badan iyo dadaal badan baan gelinay Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay waa inaan wixii ka midha dhalina ma aha wixii laga midha dhalintii inay noqonayso wax Soomaaliya dani ugu jirto Soomaalida oo xalaal ah laakiin in wax dadka loo sheego oo la dhaho Soomaaliya doorasho dimuqraadi ah baa ka dhacday taas iyaga wax weyn u ah oo ay u arkaan talaabo weyn inay qaadeen marka waa lagu qasban yahay in la sameeyo doorashadii hadda lagu doortay Xasan Sheekh Maxamuud 2012kii aw Shariif Sheekh Axmed aw ku wareejiyay xasan sheekh maxamed waqtigaas ciidamo aysan aqoon mas'uul sare oo dawladihii marka ka horeeyay ka tirsan ama ka soo muuqan jireen ma uusan ahayn bulshooyinka Soomaaliyeed hal mar buu ku soo baxay doorashada hadda yaa la fili karaa marka waa su'aal dhaba laakiin lama garan karo sida aad u sheegtay xasan sheekh markuu soo baxay lama filaynin Soomaal hadda dhowr qof way jiraan la leeyahay hebel Ethiopia wadata iyo Imaaraadka wadata iyo Mareykan baa wadata oo iyada lafteedu waa nasiib darrada jirtay hebel baa Soomaalida u fiican lama dhahayo u fiican hebel dawlad hebel baa wadata yaa la leeyahay marka lama garan karo cidda soo baxaysa laakiin dhowr nin way jiraan oo la leeyahay dadaal badan bay wadaan iyo dhaqaale badan bay ku bixinayaan sidii ay dib ugu soo noqon lahaayeen laakiin anu hadda ma dhihi karo hebel baa soo baxay sababtoo ah waxa laga yaabaa maalinka ugu dambeeya inay wax yar haddaynu in yar ka taabano dareenka bulshada Soomaaliyeed waynu ognahay musharax kasta oo muqdisho ka taga kumanaankum oo Soomaaliya intay calaamadiisa iyo garamaadiisa ay soo xidhaan u soo banaan baxa laakiin musharaxa la yiraahdo Farmaajo wax muuqaal dareen gaar ah in dadweynuhu u sameeyo ma la qabta adigu Farmaajo horta muddadii uu hayay way jirtaa shacabka Soomaaliyeed in uu xogaa ku guuleystay inuu ka dhaadhiciyo inuu kuwa kale ka duwan yahay taasna way keenaysaa dabcan in ay dadku u soo yar dhawaadaan ay u arkaan kuwa kale inuu ka yar daacadsan yahay waxyaalaha inta badan lagu amaanana waxaa ka mid ah in ciidamadii Soomaaliya oo kale uu isku dayay inuu dib u dhiso oo uu ka dhiidhiyay shisheeyahan raba inay aad faraha ugu jiraan Soomaaliya inuu dhaho warbal wax yar oo aan ku neefsano oo ku fikirno nasiya marka taasi way jirtaa hello haddana waxaan u malaynayaa isaga laftiisa meesha intii laga tuuray iyo muddadii uu siyaasadda ka maqnaa khibrad badan buu helay way marka in isdiibe dad badan waxay leeyihiin sidii hore noqon maayo way ku adkaanaysaa inuu hadduu soo noqdo inuu ninkii la yaqaanay raganimadii hore u hayay iyo Soomaali baan ahay waa inaan saa wax u wadadii saas la leeyahay muddana Nairobi uu fadhiyay international community marka waxa leedahay dadka markaad weydiiso waxay ku dhahayn waa la soo jilciyo xogaa waa gartay marka laakiin de lama garan karo hadduu soo noqdo marka un baa la ogaan karaa qofkan wuxuu la soo noqday laakiin isaga dadku waxay ku yar amaanaan muddadii yareed uu joogay wax ka yar duwan kuwa kale arrintaad ka dhawaajisay ciidamada Soomaaliya iyo hanashada in mas'uuliyiinta markaa taagan ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in ciidamo qaran oo Soomaaliyeed oo hanta bedelana ciidamada shaqada wadanka jooga amniga nabadgelyada iyo isku duubnaanta iyo midnimada soo celiya in la helo in ay adag tahay maxaa hortaagan markaa madaxweyne hadda taagan iyo intii soo martayba inay mar uun hantaan ciidamo qaran oo Soomaaliyeed ciidamo qaran horta markaad fiiriso haddii lagu dadaalo waa la samayn karaa laakiin qofkan madaxda ahi muhiim ma u tahay inuu sameeyo waa inaan isweydiino horta taasi
sababtaa isaga un weeye qofka waxaan abaabuli karee samayn karaa mana u malaynayo in ay fahansan yihiin in qaran uuna jiri karin ciidan la-aan ciidan awoodda in loo baahan yahay in la helo marka haddii la helo qof madax uu soo baxo fahansan muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ciidan awood la hesho oo shisheeyahana aan loo baahanin ciddii kale ee Soomaaliya khalkhal ku haysana ka difaaci kara waxaan u malaynayaa waa la gaari karaa lama way dhib badan tahay ma dhib yara waqtiga qaadanaysa laakiin haddii la bilaabo waa la heli karaa ciidan awood leh in la helo oo qaran Soomaaliyeed oo difaaca danaha Soomaaliyeed way aan mar kale eego farsamada iyo inuu khadka telefoonku au soo galayo halo assalaamu calaykum عليكم السلام halo assalaamu calaykum هلا عليكم السلام ورحمة waaye waxaan aad iyo aad uga xumahay mar kalena aan daawadayaasha uga raali gelinaya inaanay maanta marnaba noo suura galin baan u malaynayaa xagga khadka cilad farsamada jirta awgeed inaad nagala qayb qaadataan waaye jamaal waxaa tahay aqoon-yahan inkastood ka cudur daaratay in badan waxaad ku dhex jirtaa arrimaha Soomaalida oo xaaladaha iyo isbedelada socdana waad ogtahay maxaa kaaga muuqda is leedahay doorashadaas hadda inta badan cagajiidku ku socda ee waliba odayaasha dhaqameedyada iyo labada aqalba lagu soo xuli doona ay dooran doonaan guud ahaan iyo gaar ahaanba tan hadda socota maxaa is leedahay rajo Soomaalida ummadda Soomaalida ay ka qabtaan in mar uun hantaan madaxweynaha ay rabaan horta rajo way jirtaa oo rajo la'aani ma jirto inkasta oo qaabkan hadda wax loo wado dadku ayna ku qanacsanayn laakiin dad badan waxay qabaan rajo ah dhowr sano kadib baa laga yaabaa inay timaado fursad kale oo ay dadku qofkii ay isleeyihiin wuu ku habboon yahay in ay dhihi karaan qofkaasana maamulaya marka rajo way jirtaa laakiin doorashadan hadda socota rajo lagama qabo in wanaag badani ka yimaado Soomaaliya kulley dadkii baa daalay dagaaladii iyo wixii oo waxyaalaha hadda horumarka yar keenaya waa dadkii oo dhibkii iska dhaafay dagaaladii yareeyay qof walba uu rabo inuu magaaladiisii dhisto bulshadiiba waxaad moodaa xoogaa yar baraarugsan oo leh war sidan kuma socon karno laakiin qaabkii dawliga ahaa wali ma dhisna gobolada qaarkood wuu jiraa uu ka dhisan yahay laakiin gobol gooni u taagnaan karo oo iskii u noolaan kara ma jirto lama kala maarmo waa la isu baahan yahay taas baa maqan marka dantii guud dawlad matasha oo dadka isku keento oo ciidan dhista oo arrimaha dibadda dadka ka dhista oo tiibaan jirin taana ma u malaynayo doorashadan inay ku iman kuwa qabta laakiin rajo waa laga qabaa dhowr sano kadib isbedel inuu yimaado hadduu ilaahay qurbo ugu dambeyn dabcan isagoo barnaamijka gabagabay waxaan jecelahay qurbo joog badan baa xilliyada marka la gaaro doorasho oo Jamaal garan maayo adigu laftiga meesha waxaad ka qabanaysaa garan maayo laakiin marka doorasho la gaaro ku sii qulqula wadankii oo taga oo iyagu markaa boos raadisa ama jag raadisa maanta doorashadaas ay dhinaca u dhacdana boorsooyinkooda dib u soo qaata dadka noocaas oo kale maxaad ugu baaqaysaa marka waxaa jiray maalin dhaweyd barnaamij dalsoor aan samaynay oo aan dadka weydiinaynay oo lahayn raggan madaxtinimada u sharaxan kulligood baasboorashay wada haystaan waa gartay waanaad ogtahay dee wadankan markaad timaado ee sharci lagu siiye ee caruurtaadii iskuul aad u dhigato way u dhib yar tahay dowladda Britishku haddaad madax ka noqoto Soomaaliya inay ku dhaan wadani intaas sanaan ku biilaynay wax noo soo celin ma ogtahay marka horta waxaan u malaynayaa way kala tahay qofkii baasaboor iska wata shisheeye wadankii taga ee danihiisa wax u qabsanaya ama beec mushtar samaysanaya ama shaqo kala qabsanaya aanu dhib uma arko laakiin qofka jagooyinka muhiimka ah ee Soomaaliya qabanaya waxaa fiican in uu ka noqdo baasaboor kale u haysto sababtoo ah haddii uu ka noqdo wuxuu qofkaasi xoogga saaraya inuu Soomaali u adeego laakiin haddii caruurtiisii wadamadan cayr ugu qaataan oo loo biilo isagiina uu xaggii madax ka yahay way dhib yaraanaysaa wadamadani in ay blackmailing iyo hanjabaad waxay ku sameeyaanba ay dhahaan waxaas waa inaad noo samaysaa haddii kale baasaboorkan kala noqonayna laakiin baasaboorka hadduu ka noqdo oo wadanka reerkiisii u rabto u go'o isaga laftiisa way ku adkaanaysaa inuu wax kharibo soo moogid laakiin markuu ogyahay inuu soo cararay caruurtiina nabadgelyo u joogaan iskuul u dhigtaan meel wadamadan u joogaan oo u dhib yartaa intuu wax qaso oo boobo inuu soo cararo oo meelahan wax ka samaysto moogta laakiin hadduu qofku ka guuro baasaboorkii ka noqdo wuxuu ku qasbanaani inuu cidiyaha ku dagaalamo siduu Soomaaliya nabadgelyo iyo wanaag ugu keeni lahaa sababtoo ah isagii baa u baahan wanaagii moogta marka dadka noqonaya su-aashaas ahayd dadka noqonaya waxaan u arkaa kuwa badan oo wanaagsan way jiraan saan sheegayna kuwa beec mushtarka ama shaqooyinka kala qabanaya wanaag badan bay u keenaan bulshada
dhaqaalo badan baa loo diraa wadankii dadkeena dibadda jooga laakiin waxaan aaminsanahay dadka boosaska muhiimka ah dowladda ka haya weliba madaxweynaha oo kale iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo in shuruud looga dhigo inay baasaboorada shisheeye ka noqdaan inta ayna jagada isu soo sharaxin waxaan u arkaa in ay tallaabo noqon lahayd nin walba oo madmadow ku jiro uuna soo haweysteen inuu Soomaaliya madax ka noqdo laakiin ninkii nadiif ah raba inuu dadka u xarbiyo uu wanaag keeno usoo xaydxayto uu shaqada qaban lahaa وهاجاك intayna gabagabayn tala iyo tusaale guud daawadayaasha iyo arrimaha Soomaalida iyo doorashooyinka noo aynu ku jirno ereyga ugu dambeeya أنا waxaan dhihi lahaa kulay san horeyba uga afeeftay wariyaasha inta badan xumaantay fiiriyaan oo dabeecadaasaan iska leenahay xumaantu maan aragnaa khaladaad badan way jiraan iyo ceebo badan iyo musuqmaasuq iyo dhib badan wuu jiraa laakiin san horeyba u sheegay dhalinyarada waxaad moodaa way nool yihiin rajo badan bay ku gelinayaan dhalinyarada markaad aad la sheekaysto ee weydiiso ana waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu ha isku dayaan yana ku daawanin odayaashan meesha kharibaya ee dadka boobaya ee wax qasaya ha isku dayaan inay dhex galaan dawladii iyo wixii oo ilaan iyaga mustaqbalkii ay danaha Soomaalida gacanta ku qabtaan taa hadii la sameeyo waxaan u malaynayaa Soomaaliya inay horumar gaadho iyada dhibabkii kale in haystay aha qabyaalada in la iska yareeyo iyo musuqmaasuq oo dadku ay fahmaan dan guud hadaad adigu fiicnaato anigu waan fiicnaan hadaan anigu fiicnaan adigu waad fiicnaan laakiin hadaad adigu xun tahay anu ma fiicnaan karo Soomaali baan nahay marka in danta guud la ilaaliyana waxaan isleeyahay waa laga maarmaan وهاجاك daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Jamaal Maxamed Cusmaan oo ah wariye Soomaaliyeed oo ka howlgala Channel 4 oo laga leeyahay wadanka Britain oo isagu marti noogu ahaa barnaamijka martida Kalsan oo si toos uga daawanayseen Kalsan TV studiisa magaalada London dhanka farsamada waxa uu ahaa saaxiibkay GB toddobaadada dambe intaan ku kulmi doono dhamaantayna waxaan idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh